wakiilada beesha caalamka ayaa ra'iisul wasaare Roble ka dalbaday in uu hoggaanka u qabto doorashada dalka kadib markii ay maamulada qaar sheegeen inaysan ku kalsoonayn madaxweyne Farmaajo. dhanka kale midowga musharaxiinta mucaaradka ah iyo xubnaha beesha caalamka ayaa xilligan kulan ka leh banaanbaxyada toddobaadkan ka dhacay Muqdisho iyo khilaafka doorashada. arrimahan waxa la socdo iminka studio ku sugan Xuseen Cabdulla Maxamed. Xuseen, maxaa cusub? maxaan shuri waa macsan tahay. waxaa muuqata in qayb ka mida dadaaladii socday ee saacadii lasoo dhaafay laga dhaxwaday xubnaha mucaaradka ah iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliya ama gaar ahaan dhinaca dawladda ay miro dhal noqdeen, inkastoo weli ay kulamo socdaan xalna loo raadinayo tabashooyin xoog leh oo jira. kulamadan dhexdhexaadinta ah waxaa wada dad u badan siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada ama deegaanada Hirshabeelle, Galmudug iyo Banaadir, waxaana xubnahaasi ka mid oo laga xusi karaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe, senator Cabdi Qaydiid, senator Dhegey, senator Dhegdheer, Maha Salaad iyo mas'uuliyiin kale. waxay dhammaantoodba saacadii lasoo dhaafay wixii shalay iyo habeen hore ka horreeyay ee dadaal ugu jireen sidii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo kulan kula qaadan lahaa xubnaha mucaaradka ah gaar ahaan golaha midowga musharaxiinta, isla markaana xal loogu heli lahaa xiisadda iyo ismarwaaga siyaasadeed ee dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka taagnaa magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kale kulamadan xoog loo gelinayo in xal laga gaaro jimcaha ka hor doodaha taagan ee dhinaca doorashada. sidoo kale waxaa jira kulamadaas inay qayb ka yihiin xubnaha ka socda dawladaha Soomaaliya daneeya gaar ahaan beesha caalamka oo iyaga laftirkooda kulamo kuwan la mid ah kasoo bilaabay Garowe oo Puntland ah iyo magaalada Kismaayo oo gobolka Jubbada Hoose xarun ku meel gaar ah oo hana maamulka Jubbaland. waxaa soo baxaya in xubnaha wakiilada beesha caalamka dadaaladii ay sameeyeen in badan oo kamid inay ku guuleysteen. 3 qodob ayaa laga soo qaaday Dani iyo Axmed Madoobe oo ay dalbadeen, kuwaas oo ay shuruud uga dhigeen inay kaga qayb galaan shirka doorashada Soomaaliya, waxaana loo gudbiyay qodobadaas ra-iisul wasaare Roble iyadoo xubnaha caalamkana ay ka dalbadeen inuu dhaqan geliyo. qodobada waxaa ka mid ah kow in xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ay ka garaawdo dhibkii dhacay 19 bishan oo ku beegnay jimcihii hore, markaas oo la weeraray sida la sheegay ilaalo ay lahaayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud taalada dirjirka daahsoon ka dhacay, iyo isla jimcahaas oo sidoo kale la weeraray xubno musharaxiin ah oo banaanbax nabada ka dhigayay meel u dhow isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho. labada maamul goboleed waxay dalbadeen in qasab ay tahay in dawladdu ay raaligelin ka bixiso dhibkaas dhacay. sidoo kale waxay dalbadeen in xukuumadda Soomaaliya ay ogolaato xurriyadda hadalka oo ay raali ka noqoto in dadka si nabad ah u banaanbaxaan, sheegaan waxa ay rabaan maadaama dalku ku jiro marxalad kala guura, jawiga doorashadana ay dood badan ka taagan tahay, walaa xoog leh ummadda Soomaaliyeed ay qabaan. waxyaabaha kale oo ay xubnahaasi ay dalbadeen waxaa ka mid ah in meel ammaan ah lagu qabto doorashada Soomaaliya shirarka ku saabsan oo aan ahayn villa Soomaaliya, iyagoo sabab uga dhigay in kalsoonidii amniga ee Muqdisho ay ku qabeen ee burburtay ama aysan jirinba kalsooni kale oo ay ku qabaan madaxweyne Farmaajo oo fulin waayay heshiisyo badan oo uu la galay xubnaha dawlad goboleedyada. sidaas darteedna ay muhiim tahay in lagu qabto xarunta Xalane, goobjoogna ay noqdaan wakiilada beesha caalamka si ay u ogaadaan dhaqangelinta heshiisyadan. waxyaabahaas oo dhan ayaa la sheegay in xubnaha beesha caalamka ay shalay u gudbiyeen ra-iisul wasaare Roble oo kulan la qaatay. ra-iisul wasaare Roble waxaa lagula taliyey inuu la wareego hoggaanka doorashada Soomaaliya, isla markaana uu bilaabo dadaalo oo xal ugu raadinayo sidii uu u qancin lahaa dhinacyada tabashooyinka qaba ay ugu horeeyaan labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland iyo golaha midowga musharaxiinta. ra-iisul wasaare Roble waa aqbalay, wuxuuna durba bilaabay sidii uu dadaaladaas uga miro dhalin lahaa, iyadoo weli waawaan ay socdaan. isla wararka doorashada marka laga hadlayo waxaa hadda socda sidoo kale kulan ay leeyihiin xubnaha wakiilada beesha caalamka iyo sidoo kale golaha midowga musharaxiinta. waxaa lagala hadlayaa golaha midowga musharaxiinta warqad ay u qoreen golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan, taas oo ay kaga hadleen xaaladda Soomaaliya. si gaar ah kulankan oo hadda socda oo aaladda Zoomka ku dhacaya ayaa waxay xubnaha wakiilada ah ee beesha caalamka ah ay dhageysanayaan tabashooyinka ay qabaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo golaha midowga musharaxiinta. waxyaabaha ay soo jeediyeen ama kulankooda ku saabsan yahay waxaa ka mid ah kow in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wareejiyo talada dalka, golo qaranna uu ku wareejiyo oo ku meel gaar ah, iyo in heshiiska madambeesa laga gaaro 3 qodob ee doorashada Soomaaliya ilaa hadda caqabada ku ah waa arrinta gobolka Gado, arrinta Somaliland, iyo in golaha midowga musharaxiinta
ay door ku yeeshaan hanaanka doorasho ee Soomaaliya maadaama muddaxileedkii madaxweynaha oo dhamaaday musharaxna yahay dhexdhexaadna oo san doorashada ka noqon karin sidoo kale waxa ay xubnaha wakiilada beesha caalamka ah qodobada ay dhageysanayaan oo ay golaha midowga musharaxiinta gudbiyeen golaha ammaanka qaramada midoobna u gudbiyeen haddana ay sheegaan waxaa qayb ka ah inay iscadilaan taliyaasha ciidamada booliiska militariga iyo nabad sugidda oo ay sheegeen in ay ku milmeen siyaasadda Soomaaliya kana qayb qaateen weerar loo geystay waxyaabahaas ugu waaweyn kulamadan hadda ayay socdaan daqiiqad kasta way isbedelayaan saacad kasta warar kala soo baxaya kulankan oo musharaxiinta iyo wakiilada beesha caalamka markii uu dhamaado waxaa la filayaa in Ra'iisul Wasaare Roble dhinacyadii dhexdhexaadinta waday iyo musharaxiinta inay kulan ku yeeshaan hotel Dikali oo ku yaala airportka magaalada Muqdisho kulamadaasina waxaa xal loogu raadinayaa weli arrimaha doorashada ee taagan wararka aan helno waxay sheegayaan in beesha caalamka sidoo kale hadda musharaxiinta ay kala hadlayaan sidii ay u qaboojin lahaayeen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo tan amniga si gaar ah in xal loo helo arrinta cabsida badan laga qabay ah banaanbaxa toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho weli la iskuma fahmin qodobada qaarna waa la isku fahmay waxaana la rajaynayaa in kulanka kale ee dhici doona ee wakiilada beesha caalamka iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaare Roble iyo xubnaha mucaaradka ah ay suurtagal tahay in beesha caalamka ay qayb ka noqoto oo sidoo kalena ay goobjoon noqdaan dhinacyadan dhexdhexaadinta wada xaaladda Soomaaliya waxaa la filayaa saacadaha soo socda in isbedel ku yimaado oo dhinaca doorashada dooda ka taagan ah iyo banaanbaxan dadka Soomaaliyeed ee walaaca badan ka qabaan inuu dalka colaad u horseedi karo iyadana inuu natiijo ka soo baxdo rajadaas ayaa la qabaa waxaa la filayaa saacadaha soo socda iyo wixii natiijaha soo baxa